wiilka iyo gabadha wada dhashay halka hooyo ay wada dhashay maalintii ay hooyadu ku tuntay gabadha in wiilka ay dharka u dhaqdo oo badarka u karido ayaa dabcan some kind of in dumarka la liidayo maalintaas soo bilow wiilka iyo gabadhu ilaaha wada abuuray gabadhu inay badar karido ilaahay uma abuurin wiilka inay dharka u dhaqdana ilaahay uma abuurin wiilku inuu dharkiisa dhaqdo gabadhana keeda dhaqtay ahayd marka iskuul ka wada yimaadaan oo gabadhii wiilka isla socday iskuulka inta ka yimaadaan guriga soo galaan oo wiilka buugaagta iyo dharka u wato halkaas ku tuuro oo banaanka dib ugu laabto hooyadana ay gabadha ku tunto in dharkaasi ay qaado oo u laalaabto wiilka buugaagtana ay u qaado meesha isfaalaha u saar dabcan xadgudubka maalintaas soo bilowda ayaan qabaa waxay ahayd in wiilka mas'uuliyadda la dareensiiyo sidoo kalena gabadha la dareensiiyo in wiilka ay la simantahay oo iskeed ay wax qabsan karto maanta gabdhaha Soomaaliyeed waxa ugu weyn ee haysta waxa waaye wax qabkiya ka lumay waxay aaminsan yihiin in waxyaabo badan aysan qaban karin marka waxa leenahay dumarka Soomaaliyeed doorkiina qaata istaaga qab isku yeela awood badan ay leeyihiin ragga waa ka awood badantiin waa ka maamul fiicantiin abuse marka leen ku sameeyo marka shaqooyinka ay gaarto waxyaabaha saa ugu gudubtaan maskaxdiina adeegsada hal abuurnimo la imaada adika shaqaha la ii soo raadsadaan in dhihi la aniga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.